hambalyo boqorada masraxa Nadiira Nayruus iyo saygeeda alfanaan Caydiid Jawhar oo aqalgalkoodu ka dhacay caasimadda Muqdisho. hambalyo ugu dambeyn waxa uu hirgalay jacaylkoodu labada lamaane Caydiid Jawhar iyo sidoo kale fanaanada Nadiira Nayruus. Haddaba daawadayaal lamaanahan ayaa jacaylkoodu ka soo tisqaaday hoygii fanka ee Hargeysa iyo Buurtina Sahablood. Haddaba labada lamaane ayaa ku aqalgali doona xagga ay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ugu dambeyntiina waxa loogu tumi doonaa hotel kamid ah hoteelada Xamar Cadeey. Haddaba daawadayaal jacaylka labada lamaane ayaa ahaa mid aan gabi ahaanba ka dhex muuqan saacada social media ahaana jacayl hoos loo wado. Haddaba daawadayaal waxaa hirgeliya ma xaqiijiya arooskooda iyo gurigalkoodaba Cabdiaskari Tube oo ah nin lagu kalsoon yahay. Haddaba muuqaal dheer ayaa uu ka soo sameeyay Cabdiaskari Tube bartiisa YouTube-na oo ku soo baahiyay. Muuqaalka Nadiira Nayruus ayaa dadka qaarba si u wadwadeen balse ugu dambeyntii waxa ay noqotay fanaanada Nadiira Nayruus xaaska Caydiid Jawhar. Caydiid Jawhar ayaa ahaa gabi ama mid aan lagu xaman jirin balse ay ahaayeen fanaan heeso soo wada qaadeen tan iyo bilowga ay isku barteen magaalada Hargeysa. Waxay ahaayeen qaar soo wada qaaday heeso ugu dambeyntiina waxa ay noqdeen lamaane midoobayna nolosha. haddaba daawadayaal lamaanahan ayaanu hal fariin u diraynaa oo aanu leenahay hambalyo. dabcan adigu waxaad qaybta commentiga ka soo oran doonto ma garanayne gabiyaanba waxaanu hambalyeynaa fanaanada Nadiira Nayruus iyo sidoo kale xaajigeeda cusub ee Caydiid Jawhar. xidigta ka soo jeeda hoyga nabadda ee Muqdisho ayaa dhagax dhigatay Hargeysa muddooyin badanna barta Hargeysa deganeed. haddaba daawadayaal Caydiid Jawhar ayaa isaguna ahaa fanaan ka soo jeeda hoyga fanka iyo Hargeysa hadwanaag. ugu dambeyntiina waxa ay noqdeen fanaanada Nadiira Nayruus waxa ay ku soo noqotay magaalada Hargeysa oo ay socdaal badan iyo cheating badan ku timaadaba bartan markii ay show ku qabsatay. ugu dambeyntii waxa ay noqotay mid calafkeeda ku sugaysay bartan. haddaba fanaanadan ayaa muddo 2 sano lugta ruuxaysay ahaydna dadka iskaabulada ama single motherska iyadoo la sheegay ama la shaaciyay inay u hayso wiil yar Muursheeno oo ahaa fanaankeeda hore ama xaajigeeda hore fanaanada Nadiira Nayruus. waqti yar ayaa ka soo wareegtay markii la isku xaban jiray Maxamed Indha Jacayl iyo Nadiira Nayruus. dabcan sidoo kale waxa shaaciyay ama sheegay Maxamed Indha Jacayl inaanay gabi ahaanba wax xidhiidh ay ka dhaxayneen fanaanada Nadiira Nayruus balse ay ahaayeen saaxiibo isu dhow. fanaanada Nadiira Nayruus ayaa sidoo kale iyadoo afka ka furanin ama ka gaabsatay arrimaha xidhiidhka Maxamed Indha Jacayl iyo dabcan sidoo kale hadda waqti xaadirkan waxa ay soo bandhigtay jacaylkeeda cusub iyo xaajigeeda saygeeda ah iyadoo ay ku midoobi doonaan barta Muqdisho. dabcan Nadiira Nayruus ayaa iyadu ka duushay maalmo yar ka hor geegida diyaaradu ka kacaan ee magaalada Hargeysa Cigaal International Airport. haddaba Maxamed Indha Jacayl hadii aynu soo laabano fanaanku waxa uu sheegay inaanay gabi ahaanba wax jacayl ay ka dhaxayn balse dadku waxay ahaayeen qaar isku xamanayay Nadiira Nayruus iyo sidoo kale Maxamed Indha Jacayl. haddaba daawadayaal Maxamed Indha Jacayl ayaa ahaa saaxiibka u dhow ee Nadiira Nayruus. dabcan sidoo kale waxaanay ahaayeen laba qof oo la isku xaman jiray. ugu dambeyntii Nadiira Nayruus waxa ay lugta ruuxdaba ugu dambeyntii waxa ay lugta saartay ama bawdiyaha saartay fanaan Caydiid Jawhar. ugu dambeyntiina ay halka isku calafsadeen ama ay isku dhagax dhigteen. hambalyo ayaanu leenahay bahda Meera Films. dabcan adiguna u soo timbirta waxay duusho qori baal xabag iyo xanjo waxay heli karto inta isku gunudo baraadli ina uma seexato ilaa ay buul iyo baro lagu nagaado ay ka dhisato. bini aadamkana waa sidoo kale wuxuu baadi gooba meeshu nolosha ku bogan lahaa. Nadiira Nayruus oo muddo 2 sano iyo dheeraad baroosinka dhigatay Hargeysa ayaa banaadir dib ugu soo laabatay. haddaba ugu dambeyntii xidigtan waxay baroosinka dhigatay muddo 2 sano ku dhow magaalada Hargeysa iyadoo markii ay showga ku qabsatay aan kaba teginba. ugu dambeyntiina waxa ay sheegtay ama muuqaal ay ku dhex sheegtay inay gabi ahaanba Hargeysa xamaamteeda ka guratay. haddaba daawadayaal xidigtan Nadiira Nayruus ayaa waxa ay socdaal u gashay in ay la kulanto ama la joogto xaajigeeda hoygii nabadda ee Banaadir. haddaba daawadayaal xidigta Nadiira Nayruus ayaa waqti xaadirkan ah xaaska Caydiid Jawhar. ugu dambeyntii waxay ahaayeen laba lamaane oo xidhiidhkooda hoos u wata Caydiid Jawhar iyo dabcan sidoo kale Nadiira Nayruus. haddaba daawadayaal Nadiira Nayruus ayaan iyadoo ahayd
qof aan social media ku badnayn balse ay ahaayeen dadka youtuberska ay mid ay saaran yihiin gebi ahaanna ay ka hadlaan haddaba muuqaal ayay ku cadaysay inay Hargeysa gebi ahaanba iskaga soo duuduubatay xamaamteedana ka soo guratay bartaasna muuqaal ay cadayn ah daliil ah ugu sheegayso gebi ahaanba reer Muqdisho bartaasna ay degaan ama baroosinka dib u dhigan doonto muddo 2 sano ka hor waxay ahayd mid baroosinkeedu ahaa banaadir balse ugu dambeyntii waxa ay noqotay mid Hargeysa soo degtay dabcan Hargeysa waxa ay ahayd markii ugu horeysay ee Nadiranirus sidoo kale waxay sheegtay inay gebi ahaanba ugu dambeysay waqti ay iyadoo yar ka tagtay sidoo kale waxay sheegtay inay gebi ahaanba reeraha Hargeysa degay ay ahaayeen reer abtiyaasheed haddaba Nadiranirus xidigtan qarniga xidigta Muqdisho ayaa waqti xaadirkan baroosinka dhigatay gebi ahaanba xagga iyo xamar xaajigeeda cusubna xagga kula aqal gali doonta muuqaal dheer ayaa ay soo duubtay balda show wanaagsan waa kan mahadsantii waxa anoo yifyifsano xataa aan anta u soo fadhiistay waxa weeyaan inaan idin sheego inaan imaaday waan joogaa waa joogtaa gabartiini qofka jaasha walaal ku xiisay aad baan kuugu xiisay sabaaxay hay waxaad iiga sheekaysaa inta Muqdisho damaantii ma doo faraxsanahay Soomaa sabaax waxaan ku weydiinayaa intaan magaalada Muqdisho ka maqnaa maxaa ku soo kordhay ugu dambeyn baroosinka waxa ay dhigan doontaa xagga iyo xamar iyo wadankii barakaysna ee Soomaaliya haddaba daawadayaal dhammaantiin waad ku maasantihiin kamid ahaanshaha iyo kusoo biiritaanka channelka Mera Films dabcan waxaan rajaynayaa inaan mawduuca xaqiiqatan ay idinka heshay videoga like saar like lacag maaha dabcan muuqaalka waa daawanaysaa muuqaalkan xiga inoo balana dhammaantiin saaxiibayaal waxaan idinkaga tegayaa fi sabilillah